barnaamijkeenu waxaynu ku soo qaadanaynaa qiyaasaha awoodaha ciidan ee boqortooyada Sacuudiga iyo Jamhuuriyadda Islaamka ee Iiraan. sababo la xiriira cunaqabatayntii dhanka dhaqaalaha ee Iiraan saarnayd muddada sanadaha awoodsaas uma ay lahayn inay dibadda ka soo iibsato hubkii ay u baahnayd marka laga reebo wax yar oo keliya, waxaana uu difaaceedu ku xidhiidhnaa saanada ay iyadu samayso iyo horumarinta ay ku sii sameynaysay hubkii ay waqtigii hore soo iibsatay. boqortooyada Sacuudiguna dhankeeda waxa ay kaalinta koowaad kaga jirtaa liiska dalalka hubka ugu badan dibadda ka soo iibsada, sida ay xaqiijiyeen daraasadihii ugu dambeeyay ee umuurtaasi laga sameeyey. mana jiro haba yaraatee hub ay Sacuudigu dalkooda ku farsamaystaan, waana boqortooyada kaalinta afraad kaga jirta liiska dalalka miisaaniyadda ugu badan ku bixiya ciidamadooda, iyagoo tusaale ahaan sanadkii 2015 gaashaandhigooda ku kharash gareeyay miisaaniyad ku dhoweyd 750 bilyan oo doolarka Mareykanka, xilli ay miisaaniyadda ciidamada ee Iiraan gaadhayso 6 bilyan oo dollar oo keliya. inkastoo ay Iiraan kaalinta 23aad kaga jirto dalalka liiska dalalka militari ahaan ugu quwadda weyn wadamada caalamka, liiska oo ay Sacuudigu kaga soo fadhiisteen kaalinta 28aad. Iiraan waxay kaga horeysaa Sacuudiga isugeynta tirada ciidamada, iyadoo Iiraan haysato ilaa 550,000 oo askari oo xeryaha diyaar ku ah. marka sidaa looga qiyaas qaatana Iiraan waa dalka 8aad ee haysta ciidamada ugu badan ee diyaarka. liiska oo ay Sacuudiguna ka galeen kaalinta 24aad, iyagoo haysta 230,000 oo askari oo shaqada ku jira, sida ay cadeynaya qiyaasihii la xaqiijiyay sanadkii 2014. dhanka ciidamada kaydka ee labada wadan ayaa iyana aad loogu kala durugsan yahay, iyagoo wax ku dhow 2 milyan oo askari ay kayd u yihiin ciidamada Iiraan, hase yeeshee Sacuudigu ay leeyihiin ciidamo kayd oo aan ka badnayn 25,000 oo askari. haddiiba dagaal dhaco in ka badan 46 milyan oo dadweynaha reer Iiraan ayaa aragti ka haysta dhanka shaqooyinka ciidamada, halka dhanka boqortooyada Sacuudigana haddii ay xaalad sidaasi timaado ay 15 milyan oo qof ra'yi ka dhiban karaan arrimaha ciidamada. boqortooyada Sacuudiga iyo Jamhuuriyadda Iiraan oo isu kala aaminsan inay yihiin tiirarka madhabadaha Shiicada iyo Sunniga ee mandaqada Bariga Dhexe waxay mid waliba sheeganaysay inay ku horeyso haysashada hubka kala duwan ee adeegsadaan ciidamada dhulku. Jamhuuriyadda Iiraan oo haysata taangiyo dagaal oo tiradoodu gaarayso 1500 oo taangi ayaa waxay kaalinta 17aad kaga jirtaa liiska dalalka haysta taangiyada dagaal ee ugu badan, liiska oo ay Sacuudiguna kaga jiraan kaalinta 22aad maadaama ay haystaan ilaa 1200 oo taangi. Sacuudigu waxay leeyihiin in ka badan 5400 oo gawaarida gaashaaman ee dagaalka, xilli ay haysato Iiraan 1300 oo kaliya oo gawaarida noocaasa. dhanka ciidamada badda ayaa Iiraan waxa ay noqotay dalka afraad ee dunida oo dhan ka haysta hubka ugu badan ee dhanka ciidamada baddu adeegsadaan, kaasoo gaadhaya ilaa 400 oo gaadiidka noocaasa, xilli ay boqortooyada Sacuudiguna leedahay ilaa 50 gaadiidka dagaalka ee dhanka badda. sidaana waxa ay ka gashay kaalinta 55aad liiska kala horeynta hubka dhanka ciidamada badda. Jamhuuriyadda Iiraan waxa kale oo ay leedahay raxanta afraad ee maraakiibta quusta ee ugu ballaaran dunida oo dhan, taasoo tiradeedu gaadhayso ilaa 32 markab oo badda quusi kara, xilli aanay Sacuudigu lahayn hubka noocaasa. hubka dhanka badda loo isticmaalay ee boqortooyada Sacuudiga waxaa ka howlgala ilaa 50,000 oo qof oo 12,000 oo ka mid ah ay yihiin ciidamada badda. dhanka ciidamada cirka ayaa Jamhuuriyadda Iiraan waxay haysataa ilaa 470 diyaaradaha dagaalka, waana dalka 24aad ee haysta diyaaradaha ugu badan ee dagaalka, waxaase kaga horeysa boqortooyada Sacuudiga oo haysata ilaa 670 diyaaradaha dagaalka, iyadoo liiska caalamiga ahna kaga jirta kaalinta 17aad. iyagoo sidoo kalena Sacuudigu ku qalabeysan yihiin 28 ka mid ah diyaaradaha aanu duuliyahu wadin oo ay ka soo kala iibsadeen dalalka Shiinaha iyo Turkiga. inkastoo guud ahaan hubka ay ku qalabeysan yihiin ciidamada cirka ee Sacuudiga uu yahay mid laga soo waariday dalalka Mareykanka iyo Britain, waxaana jira diyaarado aan badnayn oo ay ka soo iibsadeen dalalka Pakistan iyo Faransiiska. hubka ay ku tirsan tahay ciidamada badda ee Iiraan ayaa isna ah mid laga keenay dalalka Ruushka, Shiinaha, Pakistan, Ukraine, dalal kale oo reer Yurub iyo xitaa Mareykanka oo ay hubka ka iibsan jireen xilligii boqorkii Shaah uu xukumayay wadanka Iiraan. waxaase ay haystaan ilaa 900 diyaaradood oo ay iyagu samaysteen, waxayna ahayd sanadkii 2013 markii ay Iiraan ku dhawaaqday inay horumarin ku samaysay qayb cusub oo diyaaradaha aan duuliyuhu wadina oo noocoodu yahay Ra'ad A5. waana diyaaradaha aan duuliyuhu wadan ee awoodda u leh inay tigsadaan oo duqeeyaan, dabeetana burburiyaan oo baabahda ka dhigaan bartilmaameedyo dhaqdhaqaaqaya iyo kuwa taagan labadaba, iyagoo ah diyaaradaha qaarkood loo adeegsan karo qaab ismiidaamin oo ay xambaari karaan waxyaabaha qarxa, dabeetana lagu dhufan karo goobo si gaara loo calaamadsaday.
dhanka xuduudda gantaalaha ee labada wadan haddii aynu eegno waxa inagu adag inaynu calaamadino xadiga gantaalaha ay haysato boqortooyada sacuudigu maadaama ay sidii ugu adkeyd qarsoodi uga dhigtay siraha ku saabsan hubkeeda noocaasa waxaase la aaminsan yahay in gantaalaha ugu waaweyn ee ay haysato uu ka mid yahay saaruukha DF3 ee ay shiinuhu farsameeya kaasoo qaadi kara madaxyo waxyaabaha qarxa oo culeyskoodu gaadhayo ilaa 2100 kilogaram waxaana ay qayb ka yihiin jiilka dhexe ee gantaalaha balastigada warbixinihii ugu dambeeyey ee qiyaasaha u badnaana waxay adkeynayaan inay sacuudigu haystaan ilaa 120 gantaal oo noocaasa waana sawaariikh ay shiishkoodu 100% ahayn oo lagu garaaci karo oo keliya masaafo ballaaran oo cadowgu soo fadhiyo iyagoo gaari kara masaafo 2800 kilomitir sanadkii 2014 ayay ahayd markii ay warbaahinta caalamku baahisay warar dhanka sirdoonka ah oo tilmaamayay inay sacuudigu qaab qarsoodiya uga soo iibsadeen shiinaha tiro ka mid ah gantaalaha balastikada ee ridada dhexe ee noocoodu yahay DF21 noocan gantaalaha ah oo ka shiisha wanaagsan gantaalihii hore ee DF3 jamhuuriyadda Iiraan ayaa iyadu ah dalka afraad ee dunida ugu quwadda weyn dhanka gantaalaha waxaana ka horeeya oo keliya dalalka Ruushka Mareykanka iyo Shiinaha waxaana ay si weyn uga shaqeynaysay horumarinta shiishka gantaalaheeda iyadoo adeegsanaysa qalabka raadaarada waana dowladda duqeyn karta maraakiibta diyaaradaha xambaara ee cadowgeeda gantaalaha Iiraan haysato waxaa ka mid ah gantaalaha noocoodu yahay Shihab 1 iyo Shihab 2 oo ah gantaalihii Scott oo lasii horumariyey waxaana ay gaari karaan masaafo 300 kilomitir ilaa 500 kilomitir halka sidoo kalena ay haysato gantaalka Shihab 3 oo gaari kara masaafo 900 kilomitir iyo gantaalka kale ee noocoodu yahay Sijil oo iyagu duqeyn kara masaafo 2200 kilomitir waana dowladda kaliya ee caalamka ah ee gantaalaha noocan ah horumarisay iyadoo aan lahayn madaxyada nukliyeerka waxaana intaas oo dhan kasii awood weyn gantaalka ay Iiraan haysato ee noocoodu yahay Ashura kuwaasoo gaaraya masaafo 2500 kilomitir